soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtiin si walba muuqaalka idiin soo gaarayo after international break 2 isbuuc oo hawada lagu kala maqnaay boring balse u ahaayeen wadamada qaar u soo baxay World Cup-ka 2026 samarka dambe la ciyaari doono balse dagaalkii sokeeye ayaa dib u soo laabtay maalinta Sabtiga iyo maalinta Axadda ayaa la farasaari doona alaba barnaamijkan ama muuqaalkan waa muuqaalkii saadaalinta horyaalka Premier League kulamada sideedaad ee horyaalka Premier League waxaa hore u soo saadaaliyay todobadii kulan ee la soo dhaafay hore wax badan ayaa u soo saxay haddana waxaan rajaynayaa in kulamada soo socdo aan wax badan sixi doono soo dhawaw adigana qaybta hoose fikirkaada iyo saadaalintaada ka dhiibo alaba waxaan saadaaliyaa kulamada loo yaqaano Big Six-ka haddii ay tahay markaadii kuugu horreysay oo na soo booqato fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka laag badan siisid soo u gaaro saaxiibo badan beejkana aad follow soo dhahdid haddii aad horey la joogtay waa ku mahadsan tahay la joogistaada iyo la jaanqaadkaada u sii sheergaray saaxiibadaada ugu yaraan maantay 5 qofood madaxayga ugu sheergaray saan u gaarno 10,000 keliya waxaa ka dhiman 200 qof oo keliya soo dhawaada mar kaleeto saaxiibayaal kulamo xasaasiya ayaa jiro horyaalka Premier League isbuuciisii sideedaad waana la faro kama qodno hadal badanna hama buuxsho haddii aan guda galo saadaalinteeda kulanka ugu horeeya waa kulanka kooxda Nottingham Forest marka ay soo dhaweeyaan kooxda Chelsea Nottingham Forest macallin cusub ayaa qabsaday todobadii kulanne maysan badin waliba hal dhibic maysan qaadan Chelsea ayaa wajahayso Nottingham Forest macallin la'aan Enzo Maresca waxaa la ganaaxay hal kulan iyo 8,000 oo baan ayaa la ganaaxay aad iyo aad ayaa u nacbahay kulanka ugu horeeya ee horyaalka Premier League waliba la ciyaarayo lunch time-ka Chelsea ayaa wajihi doonto kooxda Nottingham Forest oo wax guula wali aysan qaadan iyo Chelsea oo la naaloonayso guushii u dambeysay ee ka qaateen kooxda Liverpool haddii aan saadaaliyo kulankaas wuxuu ku dhamaan doonaa 2-1 ee Chelsea ku adkaan doonto kulankan labaad waa kulanka kooxda Man City marka ay soo dhaweeyaan kooxda Everton oo ka maqan yahay Jack Grealish maadaama kooxda Man City oo amaah loo qaatay Pickford ayaa u saxiixay qandaraas kooxda Everton oo ku bilaabatay dardar aad iyo aad u wanaagsan xilli ciyaareedkan balse ku ciyaarayso guriga Man City ayaa ku saadaaliyay Man City inay ku adkaan doonaan 3-1 kulankana saddexaad ee Big Six-ka waa kulanka u dhaxeeya kooxaha Fulham kooxda Arsenal xidigaheeda international break-ga isku dar caawin iyo goolba waxay ka dhigeen wacdaro 10 gool markii la isku daro caawin iyo goolba ay ka sameeyeen kulamada internationalka ee wadamadooda ay u ciyaarayeen sidaa daraadeed Arsenal iyo Fulham waxaan ku saadaaliyay Arsenal inay ku adkaan doonaan 2-1 kulankan xiga waa kulanka Tottenham markay soo dhaweeyaan kooxda ee xilli ciyaareedkan ka jajabantahay ee Aston Villa Tottenham gurigooda markay ku ciyaarayaan kulamo xasaasi ayaa ka dhaco mar waliba Tottenham waa la dhibaa kulankooda gurigooda markay ku ciyaarayaan kulankaasi inuu ku dhamaan doono min 2 gool kulankan ugu dambeeya waa kulanka isbuuca horyaalka Premier League ama kulanka ugu weyn horyaalka Premier League ayaan dhihi karaa kooxda Liverpool marka ay soo dhaweeyaan kooxda Man United oo maan ku hayso inay badiyaan kulankoodii labaad oo xiriir ah iyo kooxda Liverpool oo saddexdii kulan ee u dambeysay laga soo adkaaday waraa jiri doone wiish kale hayeero kulankaas yaa badi doono balse aniga waxaan ku saadaaliyay kulankaas inuu ku dhamaan doono min 1 gool adigana qaybta hoose fikirkaada saadaalintaada nagala wadaag inta kulmi doono muuqaalka xiga waa adigoo muuqaalka laag badan siiya sii sheergareeyo saaxiibada la wadaago saan u helno saaxiibo qaaliya inta kulmi doono muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo